بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah meel baa joogtiin waa mar kale iyo fiideo kale oo cusub. Soomaalideena waxay hore u tiri xaqa hadii afka laga xiro wuxuu ka dilaacaa caloosha. Qisada maanta aan noo wado waa gabar dulmi gashay oo dambi weyn sameysay, laakiin waxay ahayd dadka habeenkii markay jiiftaan maalintii waxa ay sameeyeen ama waxay soo mareen habeenka ka sheekeeyo oo ku qarwo. Iyada ayaan iska shiftay muxuu yahay dambiga ay gashay, maxaa lagu qaaday oo cuquubo ah ay heshay. Waxaan ku ogaanaynaa qisadeena waa qiso muhiim ah, qof walbana inay maqasho qisadan oo kaleento loo baahan yahay. Marka soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah, fadlan hadaa ugu cusubtahay subscribe isaar, fiidowga like qurux badan isaar iyo sii share garay hadaa ii awoodid. marka hore aan ku salino nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam. Allahumma salli wa sallim mubaarak ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah, laakiin marka hore intaan qisadan u gudagalin waxaa jirto gabar walaasheen ah oo la dhaho Nasra Axmed soo duceeya. waxay idin ka rabtaa duco, gabadhan in badan ayay tiri asxaabta ay soo duceeyaan. waxaa jirto gabar kale oo youtuberada yaryar ah, youtuberada soo baxaya ah, waxay idin kaga baahan tahay garab. waa gabar walaasheen ah, waxa ugu qoran Farxiye Gacal. linkigeedana waxaan soo dhigi doonaa commentiga ugu horeeya, waxaan ku soo qaban doonaa pink magaceedana waa u jeedin shaashada ayuu idin saaran yahay. fadlan soo booqda asxaabta canab inaatiina u sheega. qisadeena ayaan gudagalaynaa. gabadhan qisadeeda aan ka hadlayo maanta waxay u dhalatay dalka Tunis ama Tunisia hadba saa u taqaanid. gabadhan waxay ahayd gabar 19 jir ah, dugsi sare dhameysay. magaaladii markaas ay ku nooleed waxay ka waysay shaqo iyada markaas anfacdo. waxay aaday magaalo kale oo laakiin isla wadankeeda gudihiisa ah. waxay ugu tagtay gabar markaas ay qaraabo ahaayeen oo magaaladaas deganeed. gabadhii marka waxay dhahday waxaan u baahanahay shaqo inaad magaaladan iiga soo raadisid. gabadhii marka waxay tiri waxaa jirto warshad laga shaqeeyo oo gabdho badan ay ka shaqeeyaan oo aqaano, oo shaqana hadda aan kaaga soo heli kara haddaan kaaga doono. weliba warshada waxay leedahay guryo jiif ah oo gabdhaha ka shaqeeya warshada ay jiiftaan, gabdhaha iskaabulada ah oo aan xaas ahayn. waxaa jirto guryo deganaasho loogu talagalay inay jiiftaan gabdhahaas ka shaqeeya warshada. marka warshadaasaan kusoo fiirinaya haddii shaqo aan kaaga helo, maalintii waa ka shaqaysanaysaa, habeenkiina guryaha ay warshada leedahay ayaa u hooyanaysaa insha allah. marka gabadhii waxaa shaqo looga soo helay warshadii. waxay ku wareegatay guryihii gabdhaha iskaabulada ay deganaayeen oo warshada ka shaqeeyo. markii muddo ay ka shaqaysay warshadii, gabadhii habeenka waxaa lagu arkay mar alle iyo markay jiifato in ay qarweyso, inay isla hadlayso. maxay leedahay gabadhan? waxay leedahay aniga ayaa kuugu daray koobka qaxwada ah sun. marka ay jiifato waxay leedahay dhimo, anigaa kuugu daray qaxwadii aad cabaysay, sunta anigaa kuugu daray. gabdhihii marka hal habeen ma aha, laba habeen ma aha, marka hore waxay ku fikireen inuu yahay mathalan filin ay soo fiirsatay, qof la dilaayay, qaxwo waxa loogu daraayay ama qiso loogu sheekeeyay. isaas darteedna maskaxdeeda uga bixi laadahay oo habeen walba ugu qarweyso. laakiin markay sheekadan iska wado oo habeenka iyadoo daldalmaysa lagu soo kacayo hadalkeeda, waa ka shakiyeen. waxay u waceen gabadhii shaqada keentay. waxay dhaheen gabadhan adigaa noo keentay, habeenkii mar alle iyo markay jiifatane waxay leedahay qaxwada anigaa sun kuugu daray, anigaa ku dilay, dhimo, waxyaabahaasi ka sheekeynay. marka gabadha anaga waa ka shakinay, nafteena uga cabsanaynaa, mana la jiifan karto. gabadhii waxay dhahday waxaa lagu wareejiyey gabadhii qaraabada ay ahaayeen oo markaas shaqada keentay. habeenkii way la seexanaysay, maalintan waxay soo aadaysay shaqadii. maxaa yeelay dadkii ay la deganeed waxay dhaheen gabadhan nalama jiifanayso. laakiin gabadhii markaas qaraabada ay ahaayeen oo loo keenay sidoo kale iidan waxay ku aragtay habeenkii haddana inay soo qarowdo, inay dhahdo dhimo, qaxwada anigaa sun kuugu daray, anigaa sun ku cabsiiyey, waxyaabahaas haddana isla dariiqadii inay haddana habeenka u qarweyso. gabadhaadan waxay istiri qofkan qaxwadan sun kuugu daray ku hayso, ama adigana biyaha iyo qaxwada iyo shaahiga sun kuugu dartaa. waxay uga cabsatay, nafteedii uga cabsatay. laakiin sababtoo ah aan dhehe waxaa la habeen iyo laba habeen ma aha, habeenkii markay jiifataba way isla hadlay, waxaanay ku hadlaysaa dhimo iyo qaxwo anaa sun kuugu daray iyo waxyaabahaasi sheegay. gabadhan marka way ka cabsatay, waxay tagtay saldhigga. waxay ka gudbisay dacwo ama way u bandhigtay wax ay aragtay. waxay dhaheen waxaa samaysaa fiideo ka duub, fiideo nooga duub, hal habeen ma aha, dhowr habeen fiideo ka duub. waxaan rabnaa marka hore inaan hubsano.
gabadha marka sidii la faray ayay yeeshay waxaana fududeynaya horta caalamkan maanta aan ku noolnahay qof walba gacantiisa waxa ku jira mobile oo markaas waxa aad la kulmaysid hore aad ka sawiri kartid marqaatina kuu noqonayo marka gabadhii waxay sawirtay gabadhan iyadoo habeenkii qarweyso habeen walba qarweyso wixii kusoo celcelinayso anigaa sunta ku siiyey dhimo iyo koobka anigaa kuugu daray sunta kuugu daray inay ku qarweyso markay fiidiyooyin badan ka duubtay oo dhowr maalmood ah waxay u geysay saldhigi fiidiyooyada ayaa la arkay gabadhii waa la soo qabtay gabadhii markii la soo qabtay waxaa la dhahay qofka adiga aad dishay oo qaxwada aad sunta ugu dartay yaa waayo gabadhan marka isma oga habeenkii waxa ay sheegayso maalintii ma ogo waa yaabtay waa naxday inay wax dishay kulay way is og tahay laakiin waxay la yaaban tahay yaa sheegay see lagu ogaaday intee waa naxsan tahay marka waxay dhahday aniga waxba ma dilin waxna ma sameynin laakiin waxaa laga qaatay telefoonka gurigooda la soo wacay waalidkeeda lala hadlay waxaa la dhahay gabadhiina maxaa ku aragteen habeenkii marka ay jiifato waxay dhaheen gabadheena waxa waay hadda ka hor iskoolka ay dhiganaysay waardiyihiisii ayaa la dilay oo dhintay marka waa ka naxday aad iyo aad ilaa iyo haddana qalbigeedu ka go-ila yahay mar alle markay jiifatane sida qaxwada sunta loogu daray ay ka hadashaa ay ku daldalanta habeenkii waxay dhaheen marka iskoolkaas na siiya ciwaankiisa iskoolkii ayaa la tagay iskoolkan wuxuu ahaa iskool dugsi sare ah waa la tagay markii la tagay waxaa la baaray oo dib loo raacay sida uu ku dhintay waardiyihii iskoolkan markii la ogaaday oo xataa dhaqaatiirtii baartay siduu ku dhintay iyo sida malafkiisa ama lagu soo xiray kiiskiisa maxaa yeelay qisada ninkan waxay dhacday hal sano ka hor waxay ogaadeen booliiskii markaas baarayay waxay ogaadeen in muxuu ahay waardiyaha uu sun cabay qolkiisa dhexdiisa ku cabay qaxwan uu ku darsaday sunta keligeed uusan cabin afkiisa ay ku taalay suntii wixii uu cabay xataa la baaray laga helay calooshiisa waxa ku jira in qaxwada inuusan sunta kaligeed cabin uu qaxwo ku qastay koobkii qaxwada uu ag yaalo uu sunta ku qastay inuu ag yaalo dhaladii yareed uu sunta ka shubtay inay ag taalo ayaa la ogaaday marka waqtigaas waxaa loo xiray qadiyadiisa ama kiiskiisa waxaa loo xiray waxay ahayd waxaa loo haystay waardiyahan iskoolka in uu sameeyo ama yani gato si hoose u gato shahaadooyinka dugsi sare inuu si hoose ardayda aan sanadka si fiican wax u baranin ama dhici rabto ama aan si fiican yani wax usoo baranin inuu si hoose shahaadooyin ku siiyo ayaa la ogaaday marka baaritaana ku socday ninkaas waardiyaha ah sidaas darteed wuxuu ogaaday yani waxay ku qoran tahay malafkiisa ama kiiskiisa ku qoran tahay waxaa ku socday baaritaan wuxuu isdhahay marka adiga waa lagu ogaan doonaa kor iyo hoos waxa aad samaysay waan lagu xiri doonaa sumcadaadana way dhiman doontaa marka saas darteed inuu isku dilay ayaa lagu qoray kiiskiisa lagu qoray inuu sunta asaga cabay qadiyadaasna loo haystay kana cabsanayay inuu kashifmo oo la xiro sumcadiisana ay baaba'do almuhiim gabadhi ayaa dib loogu soo noqday wareysiga lagu bilaabo maxaa yeelay gabadhi weli xiran tahay waxaa la dhahay muxuu ahay waardiyaha iskoolka siduu ku cabay sunta qaxwadii ugu daray dabcan waa laga korbaxay marka waxay istiri maadaama adigan lagu soo qabtay laguguna haysto muxuu ahay habeenkii waxa aad sheegaysid in qof sun ugu dartay koob iyo iskoolkii aad dhiga jirtay iyo waardiyihiisii in koobka qaxwada sun loogu daray ama sun uu cabay waxay istiri marka wax kuu qarsan ma jiro marka waxaa la dhahay noo hadal waxay dhahday aniga waxaan dhiganaya iskoolkaas waxaan ahay dugsi sare sanadkaas waxba si fiican uma baranin dabcan waxay istiri waa kashifmatay waxba ha qarinin laakiin waa laga korbaxay waxay dhahday aniga sanadkaas igu dambeeyay dugsiga sare waxba ma baranin si fiican calaamadaha aan keensaday ma ahayn mid aan ku najaxayo shahaadan aan ku qaadan karo anigana ma ahayn waxaan ahayn asxaab badan oo gabdho iyo wiilal iskugu jiro marka waxaa laga dalbanayay shahaadooyin oo si hoose u gadaayay
ama soo dhameynayay oo lacagna la siinayay waardiyaha iskoolka. aniga marka waxay tiri waxaan kamid ahay asxaabtii lacagta siisay oo shahaadooyinka ka sugaysay. aniga marka waqtigeygii markii la gaaray wuxuu i dhahay shahaado kuma haayo, waa laisku haystaa, waa laiska daba yimid, waa kashif marnaa mawduuca uu kashif mi rabaa, adiga lacagtaada ku soo celinaa, marka aniga shahaado hadda kuma dhameyn kari. anigana waxay dhahday waa xanaaqay, waxaan dhahay sababta aniga kaliga ay igu diidaysid maxay tahay? aniga sanadkan waa sanadkii igu dambeeyay, mustaqbalkaygaan fiirsan lahay, waa shaqaysan lahay, hadda inaan dhaco oon sanad dib ugu noqdo diyaar uma ihi, lacagaan ku siiyey, dadkii kalanta dhan waa siisay, aniga kaligay maxaan qabaa ood ii sii waysay? asagana wuxuu dhahay aniga waa kashif mi rabaa, baaritaana igu socdo, ma ku sii karo shahaado. kadib aniga waa xanaaqay, waxaan u tagay maamulihii iskoolka, waxaan dhahay waardiyaha iskoolka shahaadooyin ayuu wuxuu ardayda u siinayay si hoose oo lacag ka qaadanayay, anigana lacagta waa dhiibay. aniga doorkayga markii la gaarin wuxuu i dhahay shahaado kuma haayo, mana kuu soo dhameyn karo. saas miyaa mudiirka marka nin u ahay, dabcan mudiirka wuxuu dhahay hadduu ku dhahay kuma haayo shahaado aniga ku siinayo, aniga cijiyaha ama ilkaha maaldhijir kugu soo qabanayo, laakiin waxaan rabaa inaad adigana i saacidid. maxaan kaa saacida? waxaan rabaa inaad iga saacidid waardiyaha iskoolka sidii aan u dili lahay, waxaan rabaa sun inaan siiyo. maxaa yeelay waxaa gadaal laga ogaaday mudiirka ama maamulaha iskoolka iyo waardiyaha in ay ka wada shaqaynayeen inay shahaadooyinka ardayda si hoos uga gataan, ardayda aan si fiican wax u baranin, baaritaan uu ku wada socdo mudiirka iyo muxuu ahay waardiyaha, inuu baaritaan ku wada socdo. marka wuxuu is dhahay malafkan ama qadiidan muxuu ahay qorta u geli waardiyaha hadduu dhinto la ogaado inuu asaga isdilay uu sun u cabay, waxaa loogu qorayaa malafkiisa inuu asaga ceebta kusoo socoto uu ka cabsaday, sidaas darteedna uu sun u cabay, kiiskiisana saasuu ku xirmayaa, anigana sidaasaan ku badbaadayaa. waxaan rabaa marka inaad igu saacidid sidaan uga taqalusin lahay, adigana shahaado aad u qaadan lahayd. marka mudiirku wuxuu dhahay weliba adigana shahaado inaad qaadatid, shahaadana waad qaadanaysaa, asagana waa ka aarsatay. haddii aniga aad isaacidid shahaadada aad rabtidne waa ku siinaa, asagana waxay kuu noqonaysaa inaad ka aarsatay. wallaahi waxay tiri diyaar aan ahay, asaga iska dhaafay, haddaad tiraahid iskoolkan dugsi sare inta dhigato nus aan dilaynaa, kaale ila dil haddaad tiraahid shahaadaan ku siinaa, diyaar aan ahay. okay, marka waxaa lagu heshiiyey in maalin loo waco xafiiska maamulaha loogu waco. almuhiim waxaa la gaaray maalintii loo wacayay, waa loo wacay, waxaa la dhahay waxaan kaa leenahay hadal nakeen. waxaa loogu wacay xafiiskii markuu yimid, gabadhii qaxway soo karisay, sunta ayay kusoo dartay. maamulihina wuu la sii sheekaysanayay waardiyaha. markii ay qaxwadii keentay oo sunta ay kusoo dartay, albaabka waxay u dhahay noo xir, waxaan rabnaa arrin qaas ah inaan ka hadalno. albaabkii ayay xirteen, maadaama kulligoodba tuugo ay yihiin, oo maamulaha uu tuug yahay, waardiyaha tuug kale uu yahay, gabadhana tuugo kale ay tahay. yacni waa dad kuwada shaqaysanayay inay shahaadooyinka ay gataan, gabadhana ay gadato, kuwaana ay ka gataan. marka albaabkii xirteen, albaabkii markay xirteen, waardiyihii sheekadii waa loo wadaa, laakiin asagays wuxuu si tartiib u cabayaa qaxwadiisii. laakiin wuxuu dareemay qaxwadii markuu xoogaa ka cabay calooshiisii in ay jeexjeexmayso, caloosh inay jeexjeexmayso, xanuun fara badan uu dareemay, caloosha ka dareemay, caloosha in la qalqalayo oo kale. markuu is ogaaday meeshaan inaysan caadi ahayn, mudiirkii dabcan yani isdhahay meeshaan caadi ma ahan, inuu istaagan uu damcay, fadhigiisaa lagu celiyey, afkana gacmaha laga saaray, labada gacmooda laga qabtay, meeshiisaa lagu celiyey ilaa ruuxdiisii ay ka baxday. meesha ayuu ku dhintay. kadibna maamulihii iyo gabadhii way aamuseen, qolkooda ayay ku dhex jireen ilaa dadkii markaas iskoolka ka shaqeynayay, macalimiintii iyo ardaydii ay ka wada baxayaan. markii ay wada baxeen waxay sameeyeen, ama gabadhaa ka sheekeynayso ay leedahay waxaan sameynay, waa soo jiidnay, waxaan keennay qolkiisa ayaan keennay,
waxaan ag dhignay koobkii uu qaxwada ku cabay iyo dhaladii yareed oo sunta ku jirtay waa ag dhignay si markaas loogu arko inuu asaga isdilay ceeb uu ka cararayo darteed sidii ayaana loo arkay malafkiisina waa la xiray inuu asaga isdilayay sunta oo nuu cabay asaga inuu asaga gacantiisa ku qastay aan dhehe asagana uu cabay sidaas darteedna uu dhintay ceebna uu ka cararayay haddii lagu helo waxa loo haysto marka waxay dhahday sidaas ayaa marka anigana shahaadada ku qaatay maamulihii iskoolkan uu ku badbaaday ceebtii asagana kusoo socotay oo loo haystay in uu sawiro shahaadooyinka kiiskii oo dhanne ama dambigii oo dhanne waxaa qoorta loo geliyey waardiyihii asagay ku caddaatay oo waxaa lis dhahay maadaama asaga u isdilay wuxuu ka xishoonayay ceebta soo socoto marka asxaabteedii sharafta leh soomaalidan waxay tiri xaqa haddii afka laga xiro wuxuu ka dilaacaa caloosha dadka dilina badanaa habeenkii way qarwaan ma aqaan waxay la qarwaan asxaabteedii sharafta leh qisadii maanta aan noogu talagalay intaas ayay ku eg tahay fadlan subscribe iyo saar video walaal qurux badan iyo saar iyo sii share garay hadaa ii awoodid walaal sheen Nasra Axmed u soo duceeya inuu muraadkeeda Ilaahay u sahlo farxiya gacalne soo booqda YouTube-keeda subscribe saara insha Allah waxyaabo badan waa ka faa'iido doontiin gabadhaas waxay marsaa cilaanka oo taf ku tahay marka waa idin salaamay waxaan kaga tagayaa saliga nabigeena suuban calayhi afdal salaatu wasalaam allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mac salaama walaalihi sharafta leh